waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo qofka hadduu qabo cilad caafimaad tusaale ahaan markii uu suuluhu ka soo baxo uu soo astijoodo haddana inay waxyar kadib haddana ay ka imaato nijaasadii salaaduu galo salaada asigoo ku jira haddana nijaasada ay soo dhaafayso asigana uusan kontrooli karin salaada ma sii wadan karaa mise waa inuu ka baxaa oo haddana dib uu isku soo daahiriyaa laba mid waaye hadday tahay nijaasadu nijaaso si joogtaa u socoto oo aan kala go'aynin markaasi waxaad samaynaysaa waxaad ku xakamaynaysaa waxyaalahan lagu xidho nijaasada iska socoto ama always ha noqdo ama neebka ha noqdo ayaad ku xakamaynaysaa meeshii nijaasadu ka soo baxaysa kadibna waad iska cibaadaysani salaad walba wakhtigeedaad u weysaysan ayadoo nijaasadii socotaadna ku tukan neeftii baa socota waa la mid waxaa la mida dumarka qaba dhiig furanka qaba ee mar walba dhiiggu jiro marka daa'imul xadath baa la dhahaa cibaadada ma diidayo waa lala cibaadaysan waa lagu cibaadaysan laakiin waxaa la samaynayaa markaa aad tukanayso baad weysaysan waadna xidhi oo markaa waad xakamaynaysaa si uusan meeshuu ka soo baxayo u dhaafin oo dhinaca kale uusan ugu gudbin hadduu yahay wax marna go'aya marna soo baxaya hadduu yahayna waxay u baahan tahay marka uu kaa maqan yahayna inaad cibaadaysato marka uu kaa soo baxana markaasi inaad iska daahiriso hadduu yahay wax uun marmar imaanaya hadduu yahay waxaa intaa dheer marar badan waxaa dhacda dadka qaarkood waswaas buu ku noqdaa oo adoon waxbaba kaa soo bixin ayuu shaydaanku wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo baxay waana dadka qaarkoodoo waxaad arkaysaa ruux baa wuxuu ku leeyahay sheekhow inta kaleoo dhan waxba igama soo baxayaan laakiin markaan musqusha galo oo aan ka soo baxo oo aan soo istijaysto markaa kadib baa waxaan dareemayaa wax dareera oo iska socda oo wakhtiyada kale ma kaa socdaa maya kaasoo kale marka waa waswaas waay shaydaankii baa wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo baxay dadka qaarkood wuxuu ku leeyahay salaadda markaan galo unbay neeftu iga timaadaa oo xilliyada kalena wax neefa igama socoto marka ma aha wax neefoo kaa socota ma jira shaydaan baa dabada kaa afuufaya siduu nebigu tilmaamay sal alla alay wasalam midkiin markuu salaadda galo ayuu dabada muxuu ahaayey inay wax ka soo baxeen buu ka dhigayaa suu salaadda kaaga waswaasiyo markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam salaadda ha ka bixin ilaa aad ama neefta shanqadheeda maqasho ama urkeeda aad dareento ilaa aad hubsato wey macnaha marka haddii uu waswaaska noocaa yahay wuxuu u baahan yahay inaadan israacinin oo aad xalli isdhihin oo aad isku daydo waswaaska noocaasoo kale inaad la dagaalanto oo aadan rumaysanin shaytaankana ilaahay ka nabad gasho aad ka magan gashood u baahan tahay marka waswaas iyo xaqiiqo jirta inaan kala saarnaan u baahannahay shaygu hadduu xaqiiqo jirta yahay joogtana yahay waa xukumka hore hadduu xaqiiqo yahay kala gogo'ayo waa xukumka labaad hadduu waswaas yahay aan xaqiiqo lahaynna inaad la dagaalanto u baahan yoodan rumaynin oo aad yacni waxa weye shaytaanka iyo xeeladihiisa weeye aad ilaahay ka magan gasho wallahu aclam